waxaan aad ugu mahadnaqayaa maxadka tababarka tiknoolajiyadda ee Berbera oo runtii isku keenay ardayda faraha badan leh oo runtii farxad noo ah kala soo qayb galno xafladda barashada ama data recovery ama data managementiga marka laga hadlayo tiknoolajiyadda professorinta baa ka hadlay maanta dunyada wax ku soo xalalaado technology ama isbedelada dunyada waxa kamid ah waxyaalaha saameynta weyn ku leh waxa kamid tiknoolajiyadda gaabiska ama wiikiska ama marka laga hadlayo dhaleecaha ama gaabiska jira ama ay leeyihiin ardaydeenu ama dadka goobaha shaqo taga u taga ama shaqooyinka u doonta waxa kamid ah computerizerka marka maanta imtixaan la isugu yimaado wala doonayo inay ardaydaas imtixaanka soo baasaan laba caqabado baa dhalinyarada inba ka hortimaadaan waa caqabada koowaad oo ah luqadda ama luqadaha kala duwan marka ama ingiriisiga ama carabiga waa caqabada labaad in wax noqoto computerka oo xafiis kasta Soomaaliland ka jira ama xafiis kasta tagaysid labada ugu muhiimsan lagu weydiinayo ama laga hadlayaa waa luqadda iyo computerka marka laga hadlayo barashada tiknoolajiyaddu waxay saameyn ku yeelanaysaa shaqadaada waxay saameyn ku leedahay aqoonta aad baranaysid maanta haddii aad aqoonta qaabka computerka loo isticmaalayo way adkaanaysaa inaad aqoon kale aad heshid maxaa yeelay maanta dunyadii oo dhan waxay isugu jirtaa qol yarba ku jirtaa qolka yar qofba si uga faa'iideysanaya inaad aqoon kala duwan heshid waxa ku xirantay inaad aqoon u yeelato waxa la tiknoolajiyadda ama computerizerka qaabka computerka loo isticmaalo qaabka wax loo raadiyo qaabka researchada loo sameeyo waxa soo markaa waxa ku xirmayaan inaad aqoon markaa aad heshid computer ku saabsan xirfadda ku saabsan ama maxadka noo soo bandhigay ama barashada tiknoolajiyadda ama data recovery-guna waxay muhiim tahay qofku inuu daatooyinkiisa qaabka loo soo celinayo helo adoo xafiis ka shaqeynaya ay data ka hadlaya rasmiga waa in heli kartaa qaabka u soo celin kartid taas waxay kor u qaadaysaa shaqo kasta markaad gacanta ku haysid haddii naftaada tahay haddii xafiis tahay marka anigoo ka faa'iideysan fursadan ardaydan iyo inta kale jecelba waxaan uga faa'iideynayay ama aan ku dhiirigelinayaa inay noqdaan kuwa barta ama fahma muhiimadda ay leedahay computer